kulan wacan daawadayaal halkan waa Somali Cable waxaan ahay Maxamed Cabdiqani Salaad qodobada wararka dunida aan idin haynana waxa ay kala yihiin madasha mucaaradka ee samata bixinta oo shaki gelisay gogosha uu fidiyay madaxweyne Xasan Sheekh ee la filayay in la qabto bartamaha bishan gudoomiye Mungab oo dah furay imtixaanka fasalka 8aad ee dugsiga dhexe ee gobolka Banaadir hogaamiye Cali Jeetana waxa uu ka hadlay howlgallada ka socda gobolka Hiiraan isagoo dhaliilay wasiirka gaashaandhigga Axmed Macalin Fiqi akhbaraadka dibadda aan idinkaga hayana waxa kamid ah Israa'iil oo afduubtay miiganayaal caalami ah oo doonayay in ay jabiyaan go'doominta marinka Gaza intaas waxay ahaayeen qodobada ugu doorka roon wararka dunida u diyaar garooba goordhow iyagii oo faahfaahsan si aad u hesho internet xawaare sare leh oo aan kala go' lahayn dooro isgaarsiinta jiilka cusub ee Somnet Telecom oo hel internetka ugu xawaaraha sarreeya dunida iyo guud ahaan geyga Soomaalida ee 5G internet si fudud u xulo xirmada internet ee ku habboon baahiyahaaga adigoo garaacaya xidig 540 gees oo ku raaxayso internet xawaare sare leh Somnet Telecom isgaarsiinta jiilka cusub shirkadda Beko waa shirkadda ugu weyn ee bixisa adeega korontada Soomaaliya Beko waxa ay koronto siisaa inta badan koonfurta Soomaaliya sida Banaadir, Jubbaland, Hirshabeelle iyo Koonfur Galbeed Beko waxa ay siisaa adeeg koronto oo dhameystiran dhammaan 17 degmo ee gobolka Banaadir iyo goobaha ugu waaweyn magaalada Muqdisho sida airportka Aadan Cadde, dekedda Muqdisho iyo dhammaan safaaradaha iyo hay'adaha caalamiga ah madasha mucaaradka ee samata bixinta oo shaki gelisay gogosha uu fidiyay madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ee la filayo in la qabto bartamaha bishan sida uu ku waramayo Cabdixafiid Nuur Barre وكان عبد الحفيظ نور بري أو فافاهنيا. هدينا محمد صلى الله عليه وسلم مرحلة أدق دلت هريناي أما قوس كيس دلت هريناي أما صحابة. madasha samata bixinta Soomaaliyeed oo dhawaan magaalada Muqdisho ay kaga dhawaaqeen qaar kamid ah hoggaanka siyaasiyiinta mucaaradka dalka ayaa war-saxaafadeed ay soo saartay kaga hadashay kalsoonida lagu qaban karo gogol loo dhan yahay oo fidiyo madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud. madasha ayaa sheegtay inay hore u taageereen siyaasiyiinta mucaaradka gogosha uu fidiyay madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud si dalka looga samata bixiyo xaaladda murugsan ee uu ku sugan yahay waxayna ku baaqeen in gogoshu ay noqoto mid loo dhan yahay oo ay ka soo wada qayb galaan dhammaan madaxda dowlad goboleedyada iyo siyaasiyiinta mucaaradka ayna noqoto madal wada xaajood siyaasadeed oo xal waara looga gaaro arrimaha masiiriga ah ee la isku khilaafsan yahay madasha samata bixinta ee uu hogaamiyo Sheekh Shariif Sheekh Axmed waxay sheegay inay u arkaan kulamada uu madaxweynuhu qabanayo 15 ilaa 22 bishan inay yihiin kuwa uu taageero ugu raadinayo jidkii uu horey ugu joogay ee sababay khilaafka iyo kala aamin baxa waxay tilmaameen in talaabadaasi ay dhaawacayso niyad wanaagga ee madashu ku qaabishay gogosha waxayna ka niyad jabinaysaa shacabka iyo saaxiibada Soomaaliya rajadii ay gogosha ka qabeen gogosha samata bixinta ee uu dhawaan magaalada Muqdisho ka hirgeliyeen siyaasiyiin mucaarada uu hogaaminayo madaxweyne Sheekh Shariif Sheekh Axmed ayaa sheegay inay mar walba u taagan yihiin midnimada iyo wadajirka ummadda Soomaaliyeed iyo sidii dalka looga samata bixin lahaa hubanti la'aanta siyaasadeed waxayna weli madaxweynaha ka dhowrayaan gogol wada xaajood oo loo dhanyahay si xal waara looga gaaro khilaafka siyaasadeed laguna mideeyo abaabulka iyo awoodda lagu wajahayo cadawga argagixisada ee duulaanka ku ah diinteena dalkeena iyo dowladnimadeena. Cabdixafiid Nuur Barre, Telefishinka Somali Cable, Muqdisho. gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho Xasan Maxamed Xuseen Mungab ayaa waxa uu maanta dah furay imtixaanka dugsiga dhexe ee gobolka Banaadir Nimca Cardoofa ayaa faahfaahinaysa xarjeenaya in aan ku baaso wal badan way furan yahay cabsina way furanta farxadna way iga muuqataa waxaa saaka si
rasmi ah magaalada Muqdisho looga daafuray imtixaanka shahaadiga fasalka 8aad ee dugsiyada dhexe ee maamulka gobolka Banaadir kaasi oo u fadhiisanayaan 41639 arday oo ku jiraan 32 arday oo baahiyaha gaarka ah qabo waxaana ay ku kala galayaan 108 xarumood oo ku yaala 20 degmo ee gobolka Banaadir gudoomiyaha gobolka Banaadir Xasan Maxamed Xuseen Mungaab ayaana si rasmi ah u daafuray imtixaanka shahaadiga ee fasalka 8aad oo sanadkii 6aad ay u fadhiisanayaan ardayda gobolka Banaadir waana ardaydii ugu badneed oo sanadkani u fadhiisata imtixaankaasi inaan baasno aniga dhammaan arday nuucayga kala ah waxaan rajeynayaa in ay soo dhexeysiin dhammaan arday imtixaanka galay waan u dhexeynayaa halka waxaan ku mahadcelinayaa waalidiinteeda sharafta leh oo halka heerka ay soo gaarsiiyay alaha maad iska dhamaad oo imtixaan dawladda oo 8aad aniga u fadhiisanayo alxamdulillah waxaan rajeynayaa inaan ku baaso wal badan way furan yahay cabsina way furantaa farxadna way iga muuqataa agaasimaha guud ee agaasinka waxbarashada maamulka gobolka Banaadir Maxamed Yuusuf ayaa ka warbixiyay tirada ardaydan sanadkan u fadhiisanaysa waxaa maanta si rasmi ah bilowday imtixaanka shahaadiga fasalka 8aad kaasoo maanta oo bisha 9 ay tahay bilaabanaya dhamaanayna bisha 12 bisha khamiista soo socota 12 bisha waxaa tirada ay ka qaybgalaysa ardaydan oo qaybgalaysa waxay leeyihiin 49639 waxaa lab ah 22778 waxaa dhadig ah 18860 waxaa kaloo raacsan tiro baahiyaha gaarka ah oo 32 ah ugu dambeyntii gudoomiyaha gobolka Banaadir Xasan Maxamed Xuseen Mungaab ayaa ka hadlay ardayda imtixaanka u fadhiisanaysa waxaana uu sheegay inuu u rajaynayo guul weyn runtii maanta aad iyo aad baan ugu faraxsanahay sharaf weyn ayayna ii tahay inaan ka soo qayb galo munaasabadan qiimaha iyo qaayaha badan oo aan ku daafurayo imtixaanka shahaadiga ee fasalada dugsiga dhexe gobolka Banaadir waxaan u rajaynayaa ardayda ka qayb qaadanaysa oo tiradooda gaarayaan 41639 arday waxaan u rajaynayaa guul oo u horseeta mustaqbal ifaya sidoo kale waxaan rabaa inaan hambalyo iyo bogaadin u jeediyo waalidiinta ardaydaas oo runtii dadaal dheer ku bixiyay inay ardaydooda iyo ubadkooda ay soo gaaraan halka ay maanta taagan yihiin waxaan ugu baaqayaa inay dadaalka halkaasi ka sii wadaan ayaguna siday ardayda u dhammaystirtaan halgankooda waxbarasho waxaan rabaa inaan halkan ka caddeeyo in maamulka gobolka Banaadir waan aniga hormuud ku ahay xilligan oo aad iyo aad u fahamsan yahay qiimaha ay leedahay waxbarashada ubadka Soomaaliyeed hogaamiye Cali Jeyte Cismaan ayaa waxa uu ka hadlay howlgallada ka socda gobolka Hiiraan dhinaca kale waxa uu dhaliilay wasiirka gaashaandhigga ee xukuumadda federaalka Soomaaliya Axmed Macalin Fiqi hogaamiye Cali Jeyte Cismaan oo maanta shir jaraa'id ku qabtay magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya ayaa waxa uu ka hadlay howlgallada ka socda gobolka Hiiraan Cali Jeyte ayaa waxa uu dhaliilay wasiirka gaashaandhigga Axmed Macalin Fiqi isaga oo soo qaatay warbixin laga soo saaray xubno lagu dilay al-shabaab Cali Jeyte ayaa waxa uu baaq u diray madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud oo xabadi ka dhacayso deegaanka aniga adigu aan ka soo jeedno la yiraahdo Hiiraan ayaa ka jira afka laga dhowrmayo taariikhda historygu wax qoran waaye aniga adigu waa ka soo jeednaa deegaankaas halkaas laga arkaa saaka meel xabadu ka dhacayso haddaan carabka ku sii dhifto beel baa dagaalamaysa Hiiraan degan madaxweyne adiguna waa ogtahay Soomaaliyana waa ogtahay adduunkoo dhanna waa ogyahay golaha amniga Soomaaliya looga tashanayana qoftooda kuma jirto ayagaana dagaalamaya amni dadkii dagaalamaya aysan ku jirin horumarka laga fila karana de waa kulley intaa uma dhaafayo madaxweynuhu cadaalad baan kaa sugeynaa anoo garanaya shakino uusan iga jirin in aad arrintaas go-aan ka qaadan doonto madaxweynuhu dadkaa waa dhiig baxayaan xaalkoodu gurmad dowladeeday u baahan yihiin
aragti dowladeed ay u baahan yihiin cid ka arrinta saaka ku jiraan ka farsamaysay u baahan yihiin waxay u baahan yihiin in lagu kaalo qorshe dowladeed aragti dowladeed talo dowladeed ayay u baahan yihiin waxyaabaha hadda anaa u cudur daarayaa saaxiibkay wasiirka gaashaandhigga waxa ugu yaran soo qaadanaya waan u cudur daarayaa dabcan information qaldanaa la soo siiyey ee asagoo hadda meesha jiida dagaalka ma tegin ninkan la yidhaahdo luuluule orgigaas iyo kuwa ka hooseeya ninka la yidhaahdo xerow waa isaga ku-xigeenkiisa iyo kan kale orgiga kale ee meesha lagu dilay in la yidhaahdo xaggaa dishay iyo hebelaa dilay waxaa keenaya dadkaasi cid ku matasha miiska shawrkaba ka mid maaha oo madaxweyne shawrka naga mid dhig baliis xaqna waa u leenahay oo ummadda soomaaliyeedoo madaxda u tahan ka mid nahay welibana wax deen ummadda soomaaliyeed u wada yaalla waan kaligeen aan qabto haynaa kaligeen aan qabto haynaa waa mahadsan tahay inaad garan kartana waan ogahaye bini aadan aan ahayoo de in lafteenu inaan saaka meediyaha keliya uun warkeenu ahaado sababo badanaa kalifay war meediya maaya warkii shawg la isku dheelaayo waa laakiin sabab baa kaliftay waxaan maqlayay beesha caalamku dagaal waran la leeyahay duqaynta iyo waxa beesha caalamku waxaan rabaa inaan si cad u sheego xilligaan oo aan dagaalada hogaaminayay si cad oo wanaagsan oo maxaan ku iraadayay aan la qiyaasi karin ayaa dowladda Mareykanka xagga cirka ay nooga caawi jirtay aad u fiican haddana inta ka warqabo wayna caawiyaan laakiin waxaad moodaa sidii hore inaysan ahayn waxaa kaloo ayagana caawi jiray xilliyadii dambe oo ka soo bilow bishii 12aad ee 2023 ee la dhamaystiray anteenada xagga nadwooga diyaaradda dowladda Turkiga ayaa ayagana dagaalka ka bilowday gobolka aan hawsha ka wada hiiraan wixii ka dambeeyayna waa dagaalamaysay labadaba waa mahad celinaynaa annaga ciddii qosol lagu kaalmayso qosolkuna hiil buu galaaye waa mahad celinaynaa sidii loola soo shaqeeyay dowladahaas maxaa Soomaaliya taageera ay noola soo shaqeeyeen ee saaxiibadana waa uga mahad celinaynaa haddana waxaan aad u codsanaynaa in loola jibaaro taageerada iyo siboodka dadkaas xaalad bini aadanimo meesha ka socota sababtoo waxa la xasuuqaya oo cadowgii Soomaaliyeed uu isugu tagay hal reera inaan waxaan rabaa in sidaa u kala gareeyo aad iyo aad u mahadsantihiin warka telefishinka Somali Cable ayaa daawanaysaan oo idinkaga imaanaya xarunta TV-ga uu ku leeyahay magaalada Muqdisho iminkana akhbaraadka caalamka Israel ayaa waxa ay afduubteen miiganayaal caalami ah oo doonayay in ay jabiyaan xayiraadii saarneyd marinka Gaza. My name is Greta Thunberg and I am from Sweden. If you see this video, we have been intercepted and kidnapped. ciidamada badda ee Israel ayaa howlgal qorsheysan ku qabtay dooni lagu magacaabo Madeleine oo ay saarnaayeen dad caan ah. Doontan waxa ay siday sahay gargaar bini'aadanimo oo loo waday shacabka ku go'doonsan marinka Gaza. doonidan oo qayb ka ahayd olole caalami ah oo lagu magacaabo doonleyda xorriyadda isku bahaystay waxa ay ka soo baxday Talyaaniga iyada oo siday sahay tiro yar oo gargaar ah taasi oo astaan u ahayd taageerada dadka reer Falastiin. qabashada doonidan ayaa dhacday kadib markii ay ku soo dhawaadeen xeebaha Gaza waxaana si degdeg ah uga falcelisay Israel oo horey u sheegtay in aysan aqbali doonin cid isku dayda in ay jabiso xayiraadda saddex geesoodka ah ee ay saartay Gaza. waxaa la xaqiijiyay in xiriirkii lala lahaa doonta uu go'ay daqiiqada ka hor intii aan la weerarin iyada oo dadkii saarnaa oo ay ku jirtay Greta Thunberg la arkayay iyaga oo xiran jaakadaha badbaadada gacmahana kor u taagaya. وبقول يهودي ركبابيرينا يو باركاو فيراي برقالو
wararka gudaha Israa'iil waxa ay ku waramayaan in doonta hadda si nabad ah loogu wado dekad Israa'iil ay leedahay halkaas oo dadka saarnaa laga dejin doono laguna celin doono dalkoodii. Hogaamiyaasha ololahan ayaa cambaareeyay tallaabada Israa'iil iyaga oo ku tilmaamay afduub badeed oo si ula kac ah u carqaladeynaya gargaar bini'aadanimo. Waxa ay sheegeen inaysan ahayn koox ciidan balse ay doonayeen in ay dunida tusaan dhibaatada dadka reer Gaza. dareenka arrintan waxa ay sii xoogaysatay markii ay muuqaal soo duubeen qaar ka mid ah dadkii saarnaa doonta. My name is Yasemin Ajad and I'm from Germany. Magacaygu waa Yaasmiin. Waxaan ka imid Jarmalka. Haddii aad daawanayso muuqaalkan, waxaana lagu joojiyay annaga oo badda marayna. Waxaana afduubtay ciidamada Israa'iil ama ugu yaraan cid la shaqaysa. Waxaan ka codsanayaa asxaabtayda, qoyskayga iyo cid kasta oo garab ii ah inay cadaadis saaraan dowladda Jarmalka si la iigu sii daayo sida ugu dhaqsiyaha badan. Sidoo kale Greta Thunberg ayaa waxa ay sheegtay in la qabtay iyaga oo ku guda jira howlgalkii nabadda iyo gargaarka bini'aadanimo ee Gaza. Waxa ay ku sheegtay inay tahay xuquuqda aadanaha iyo sharciyada caalamiga ah mid ka hor imaanaysa. Waxa ay ugu baaqday dhammaan dowladaha, hay'adaha xuquuqda aadanaha iyo dadka jecel xorriyadda adduunka in ay ka hortagaan cadaalad darrada. My name is Greta Thunberg and I am from Sweden. Magacaygu waa Greta Thunberg. Waxaan ka imid Sweden. Haddii aad aragto muuqaalkan, waxaan ku jirnaa xaalad afduub ah oo ay nagu qafaasheen ciidamada Israa'iil inaga oo marayna badda caalamiga ah dhexdeeda. Waxaan ugu baaqayaa dhammaan asxaabtayda, qoyskayga iyo saaxiibadayda inay cadaadis saaraan dowladda Sweden si aniga iyo asxaabtayda naloo soo daayo waliba si degdeg ah. Ururka Xamaas ayaa cambaareen dusha uga tuuray falkii Israa'iil ay ku qoorataysatay doon ay saarnaayeen koox miiganayaal caalami ah oo doonaya in ay gargaar bini'aadanimo gaarsiiyaan dadka ku tabaalaysan Gaza. Xamaas ayaa waxa ay war ay soo saartay ku dalbatay in si degdeg ah loo sii daayo 12 qof oo iskugu jira samafalayaal, siyaasiyiin iyo shakhsiyaad caan ah oo u ololeeya xuquuqda dadka reer Falastiin. Sheekadani ma aha oo kaliya doon la qabtay ee waa damiir dunida laga afduubay, dareen la caburiyay, gargaar la diiday, cadaaladii oo laga leexday iyo dad dulman oo indhaha caalamka uu ka jeedsaday. Su'aashaas waxay tahay goorma ay dunida garan doontaa in aamuska uu yahay qayb ka mid ah dhibaatooyinka. Warbixintaas ayaa ugu dambeysay guud ahaan wararkii dunida ee telefishinka Somali Cable. Waxa idin waramay anigoo Maxamed Cabdi Qaniya aniga khiyaarta igala qayb gashaba inta aan dib u kulmi doono nabadgelyo.